soo wax lagu faanaa ma ahan ciidamadii bedelay kuwa Amazon dhanka awoodda military ee uu Turkiga dib ugu soo celiyay sharaftii military ee dalka uu ku lahaa caalamka iyo Afrikada. ciidamada militariga dalka xagga saanada iyo hanaanka tababarka way kaga fiican yihiin Amazon saadaasha sanadaha soo socdana waxay Soomaaliya noqon doontaa wadan leh ciidamo u heegan ah difaaca dalka bad iyo bariba cid soo habeysata inay dhalaaliyaan birahooda xuduudaha dalkana kuwa shisheeyaha ku darsaday ay noqdaan hooy iyo xerooyin military ee ciidamada imika iyo jiilka xiga ee soo socda ay juhdi iyo difaac ku bixin doonaan haddii ay 10 sano jirsato hanaanka imika ee lagu dhisayo ciidamada qaranka Soomaaliya way ka baxday baahi military dhul cir iyo badba iyo tababar shisheeye iyo wixii la mid ah ciidamada dalka ayaa imika ku filnaaday difaaca dalka iyadoo wadamo ay ka mid tahay Kenya ay argagax weyn ka muujiyeen cudada awoodda jiritaan difaac leh ee Soomaaliya dib uga yigleeshay wadankeeda hadalhaynta sirdoonada military ee dalalka dariska sida Ethiopia iyo wadamo hanqalka u taagi jiray beegsiga ciida iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa cabsi weyn ka muujiyay dhismaha ciidamada danab iyo gorgor oo ah military iyo commandos isku dhex jira ee tababar iyo saanadba uu kaga caabiyo dawladda Turkiga ee saaxiib dawlaha dawladda Soomaaliya gunaadadkayaga hadba isa soo tarida soo saarid sanadba sanadkiisa kale military iyo commandos ciidamo loo tababaray waxay dhabarjab iyo cabsi weyn ku tahay wadamo ay cad yihiin inay u soo hanqal taagaan ciida iyo badaha Soomaaliya taasi beddelkeedna ay dhici karto in hogaanka dufca waliba ee military isagoo eegaya dantiisa ay iibsadaan dawladaha shisheeye ee dariska balse haddii abaabulkiisii uu ka soo bilowday wadaniyad iyo daljacayl Soomaaliya way ka gudubtay la tashi shisheeye iyo kaalmo ciidan weydiisasho iyo wixii la mid ah guulaysta